بسم الله الرحمن الرحيم magacayga waxaa la yiraahdaa Cabdulqaadir Maxamed Faarax biriq ayaan ku magac dheerahay waxaan ku dhashay Soomaaliya ayaan ku dhashay waxaan dhashay 1961 waxaan ku dhashay magaalada Beledweyne ومجال ذلك دم يكون وان كلا ومجال أنا يابو ذلك هي هين كل سكول ليفل وحكوا ذا مينش ذلك أنا أبين أذكر وأنا جري ذلك وأذكر يوبدنا أو الله بحرم ميليتري يقول نحرب بوليس كلو لو صار بحيه توبرك يحرم ميليتري لو بحيه توبرك يقول جري لما جلاي يحرر دراويش أنا كنت قلنا أنا عارف عند قلنا كوش مركرنتي waxay ahayd magaalada kaliya dadka ay sameeyeen dadka noloshooda life style kan aabiisu askari kan aabiisu waa ganacsadeyaal kan aabiisu waxa wuxuu ka shaqeeyaa shaqooyin kale oo self employed runtii waxaad marka dadka isku laba dhigtaa isku dharaa la qabaa dadka kama fikri jirin waxyaalaha hadda tirada badan la soo baxay dadka waxay ahayd dad levelkooda oo sameeyay oo runtii aadan loo faraxsanaa oo waxa arkaysa markaan aragto magaalada dadka waa wada faraxsan yihiin dad badan ayaa soo kornay maalintaan dhashay dad kale oo arkay ma jirto guryaha aan dadkii aan dariska ahaan jirno oo dariskii xalaasha ah markaan fiiriyay labada dhinac inta waxay jiri jireen reer Salaa Ayax dhinacan kale waxaa laga jiray reer Xujaale reer Weheliye Siyaad Mari Xaaji Cilmiyo naga soo horjeeday marka dadkii aan wada ciyaari jirnay kubadana dad aad u tiro badan ay ahaayeen waliba xaafadeen dad badan wada ciyaari jirnay gobolkii dad badan wada ciyaari jirnay Hiiraan markii loo fiiriyo xaafadeena dad badan ayaa ciyaari jiray oo gobolka aan ciyaari jirnay oo aan ku soo baxnay xalama waxaan ku hadisnaa jirnay meel ceel jaalle runtii 76 ayaan bilaabay ciyaarihii ugu horeeyay ardayda waxaan kala qayb galay ninkii ugu horeeyay nin hadda joogo Hargeysa oo yiraahdo Xasan Waraab Cadde ayaa number wuxuu ka dhigi jiray 7 number 9 ciyaar jiray ciyaarihii ugu horeeyay ardayda college ayuu ka dhigin jiray Beledweyne runtii dad fara badan oo waliba waxa u badnaayeen kooxda buuburtay u badnaayeen anaga Beledweyne xoogaa ku yareen oo gaduudo iyo marka la fiiriyay Axmed Cali Shire Cabdulqaadir Adawaa Maxamed Muumin Maxamed Beer marka runtii aad iyo aad Beledweyne Cawil Aadan Jiis Cabdulqaadir Gaarane rag badan oo fara badan ayaan gobolka waxa kabtan oo aan kala dhigi jiray Ongoy Cabdiraxmaan Daaris Ndol runtii Maxamed Beer ayaa sanadkii kabtan oo ahaa runtii dad fara badan oo gobolka oo markaas degmada ka tirsanaa ayaa wada ciyaari jirnay gobolka oo runtii aad iyo aad ku soo baxnay meesha ayaan ku bilaabnay والله horta runtii dadkii horta waaye hore ayaa noogu dambeysay oo anaga oo muddo dheer ayaan ka maqanahay Soomaaliya ilaa 30 sano ah Beledweyne runtii xaafadaha marka hore waxay ahaan jirtay 7 xaafadood hadda waxa laga dhigay 4 xaafadood oo coaching iyo xaawataako iyo buundooyin howlwadaag awal waxay ahaan jirtay Buulo Khayr Xidigta Irid Aamin Buulo Xabli xaafadda xoog la dhigi jiray buundooyin iyo xaafadan howlwadaag toddobaad ay ahaan jireen anagu ku soo barbaarnay aan ku soo ciyaari jirnay rag fara badan xaafadaan ciyaari jirnay runtii markaa Irid Aamin aan ciyaari jirnay buundooyin waa la ciyaari jirnay runtii aad iyo aad rag fara badan oo Irid Aamin ka tirsan ciyaari jirnay oo hadda halkan aan ku soo koobi karin runtii waxaan isku golaas ahayn iskuulka nin la yiraahdo Cabdulqaadir Guuleed Cawaale waxaan isku golaas ahayn gabdho badan sida Ruqiyo Samaroot Marin Abikar Jamiil Cabdi Xayuuke Badiifa Sheekh gabar la yiraahdo Fawzi Ciise Kays wiilasha Cawil Aadan Jiis ganay nin la yiraahdo Maxamuud Aadan Ibraahim Baadi Ismaan Xasan Cabdullaahi Xaashi Ismaan Dhuux Sakuuti wiilal badan Maxamed Cilmi kaaf magaalo weyn ahayd marka loo fiiriyo dadka deganayna dadka laga gedisanay ahayd haddii aad aragto oo aad hal u soo qaato wax isku ahay ma jiraan nin kasta meel kale gooni nin kasta meel kale ka tirsanay hadda waxa hadda qabiil loo bedelay si loo bedelay ma aysan jirin dad walaal ayaan isku meel ku soo koreen waxa horumarka keenay waxay dadku way isfahamsanayeen oo aad iyo aad magaalada horumariyay waxay ahayd aad iyo aad dadka inay u diyaarsanayeen inay wax u qabtaan oo wax qabashada ay aad iyo aad horumarin jireen runtii aniga dad badan macallin u soo noqday iskuulka buundooyin wiil iyo gabarba rag badan ayaan macallin u soo noqday marka runtii waxaa ka mid ah General Mukhtaar ayaa ka mid ah Mukhtaar Xuseen Afrax Faarax Cabdulqaadir nin la yiraahdo wuxuu ahaa Dr. Jabaax niman badan fara badan oo Beledweyne buundooyin qaar fara badan iskoolkan wadaag gabdhii wiilba hadda ma soo koobi karo maashayeen iska badan yahay runtii meesha gobolka hadda la yiraahdo oo gobolka gubernatoora oo degan yahay xafiiskiisa u yahay ilaalo ciidan la deganaan jiray aabbe ku jiri jiray
runtii meeshaas ayaa calanka lagu saari jiray oo maaragtay rasindaha aa la dhihi jiray waagaas talyaanigii meeshaas ayaa calanka lagu saari jiray waxaan xasuustaa calankaas marka la saarayo maalintii oo dhan ilaa habeenkii ma saaxan jirin ilaa anaga waa yareen ma gaari karin markaasaa intaan jiifano oon soo kacno meesha banaanka oo calanka lagu saarayo ilaa 6 saac calanka laga saarayo aan sugi jirno runtii ciyaaraa la qaban jiray waxaa la qaban jiray waxyaalo kale oo tartama ah oo sida maaragtay orado sida kale kuma lagu ciyaaraayo sida waxyaalo badan la sameyn jiray oo waxay aad maalin la wada sugi jiray oo kooda luuli waa aad iyo aad u mareyn kartay runtii aad iyo aad maaragtay rajada aad ay u fiican tahay oo dadka sidii horta waagii hore ay ahaan jirtay sagaashamayadii iyo horta aad iyo aad u fiican tahay waa hadda wadan madaxweyne leh oo diyaaradda geys oo airport loo dadka systemka uu shaqaynaya weli inkastoo weliba si fiican intaan inkasii fiican oo sii socda inkastoo bilowga markii laga soo bilaabay sidaa ma ahayn dadaa soo qaaday meelay geeyey waa la soo qaaday haddana meesha kale la geeyey waa isku soo noqon wixii nool adduunyada ee soomaaliya ha noolaato adduunyada